abaabulka howlgalla ka dhan ah al-shabaab ayaa waxa uu ka socdaa gobolka Bakool. waxaa deegaanka Caata ee gobolka Bakool ka bilowday kulamo looga tashanayo howlgal ka dhan ah al-shabaab kaas oo ay yeesheen saraakiisha ciidamada dowladda, kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowlad deegaanka Soomaalida ee liyu booliiska. saraakiisha ciidamada iyo maamulka deegaanka Caato ayaa ka arrinsaday sidii deegaanada gobolka Bakool looga bilaabi lahaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab iyadoo dhowr jeer ay al-shabaab weerareen deegaanka Caato ee gobolka Bakool. gudoomiyaha deegaanka Caato Dubad Xasan Cali oo ka warbixiyay kulamada ayaa sheegay in ujeedka uu yahay sidii ciidamada dowladda, kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed iyo dadka deegaanka iyo kuwa dowlad deegaanka ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka al-shabaab. waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in sidoo kale la diyaariyay ciidamo deegaanka ah oo hubka qaatay kuwaas oo qayb ka qaadan doona xoreynta deegaanada ku dhow deegaanka Caato iyo guud ahaan gobolka Bakool. sidoo kalena dhawaan deegaanka ay soo gaari doonaan ciidamo horle. muddo hadda laga joogo 3 bilood ayaa waxaa deegaanka Caato ee gobolka Bakool ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda, kuwa Koonfur Galbeed iyo al-shabaab oo deegaankaasi ka dhigtay marin ay ka weeraraan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida.